Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkaad igala socotaan ama aad iga daawanaysaan waa YouTube channelkayga iyo Facebook page-kaygaba. Haddii ay tahay marka ay kugu horeysay page-ka iyo channelkaba, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran si aad ula socotid muuqaal walbo oo cusub oo aan soo geliyo insha Allah. Haddii aysan ahayn marka ay kugu horeysay aad hore noola joogtay, waxaan ku leeyahay isku soo noqod wanaagsan. Waa maalin kale iyo muuqaal kale cusub insha Allah. Sidaad la wada socotaan goor dhow waxaa furmi doona DV Lottery-ga. Haddaba muuqaalkaneeto maanta waxaan ku qaadaal dhigi doonaa xog allaale iyo xogtaad uga baahan tahay inaad ku ogaatid DV Lottery inta uusan furmin, si markuu furmo aad diyaar ugu noqotid oo aad aad u xareysatid insha Allah. Su-aalo badan aan ka jawaabi doonaa oo ugu horeysa waa maxay DV Lottery, DV Lottery goormuu furmi doonaa, goormuu xirmayaa, maxaa la iska rabaa intaan uusan furmin. Insha Allah muuqaalka ayaan ku qaadaal dhigi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Muuqaalka hadduu soo gaaro like noo saar, su-aal haddii aad qabtidna commentiga noogu reeb, asxaabtaadana la wadaag oo share u dheh insha Allah. Su-aasha ugu horeysa waa maxay DV Lottery? DV Lottery sidaad la wada socotaan badankiina ay ogsoon yihiin, intaan ogsooneenna insha Allah waa DV Lottery yaa la dhahaa. Barnaamijkan wuxuu furmaa sanad walba hal mar, October uu furmaa bilowgeeda, wuxuuna xirmaa November bilowgeeda insha Allah. waa barnaamij dowladda Mareykanka ay ugu talagashay 55,000 oo qof in deganaansho ay siiso, green card ay siiso, ku noolaadaan wadankan wax ay ka qabsadaan. Wuxuuna furmaa sanad walba October, wuxuuna xirmaa sanad walba November. Marka waxaa xareysata sanad walba 10 milyan ilaa iyo 12 milyan. 10 milyan ilaa 12 milyan waxaa laga qaataa kaliya 55,000 oo qof. Soo marka nasiib waa iska nasiibkaaga tijaabinaysaa. Laga yaabaa inaad ka mid tahay oo aadan is ogeen. Marka insha Allah xareysta. Su-aasha labaad, yaa xareysan kara? Waxaa xareysan kara qof walba oo 18 sano ka weyn, ugu yaraanna haysta shahaado high school, shahaado secondary, high school, dugsiga sare, hadba sidaad u taqaanaan. qofkii ka badan haysta wuu xareysan karaa sidoo kale haddii aad haysatid heerka waxbarasho jaamacadeed, bachelor ha noqoto, master degree ha noqoto, ama ha noqoto PhD. iyo sidoo kale waxaa kaloo xareysan kara dadka shaqo experience haysta 2 sano iyo ka badan. haddii aad company u shaqeysid oo aad 2 sano iyo ka badan u shaqeynaysay, sidoo kale waa xareysan kartaa haddii ay da'daada ka weyn tahay 18 sano. dadka isqaba ayagana sidoo kale way xareysan karaan oo married ay ku xareysanayaan, nin iyo naag iyo caruurtooda sidoo kale way xareysan karaan. Su-aasha saddexaad, xagee laga xareystaa? Commentiga sectionka waxaan soo gelin doonaa website-ka saxda ah, linkigiisa ee laga xareysto. Hal website ay jiro, dadka qaar scammers helaan oo website-ya qaar oo been ah jiraan oo dadka lacag looga qaato. Marka iska ilaali website-yadaaseeto. website-ka saxda ah linkigiisa insha Allah waxaan idiin soo gelin doonaa comment sectionka, pinna waa saari doonaa oo si uu u noqdo commentiga ugu horeeyo. yaa ladin khiyaamin, wax lacag ah kaaga baxayso. waa barnaamij free ah, waa barnaamij instruction la raacayo kaliya adigoo xareysan kartid. marka insha Allah goormuu furmayaa? wuxuu furmayaa sanadkan October 5 hadduu Ilaah yiraahdo. waxaa nooga dhiman kaliya 5 maalmood sida qiyaasaya. maanta waa 29, marka 5 maalmood kaliya ayaa ka dhiman in uu furmo. maalinka 5aad ha ku darina. marka waa 5 maalin, waa 30, 1, 2, 3 iyo 4. 5 maalmood kaliya ayaa ka dhiman. wuxuuna xirmi doonaa November 8 insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad su-aashaasna fahanteen. su-aasha kale xigta, waqtiga ugu fiican ee la xareysto. su-aashan dhowr maraa la weydiiyey. waqti cayiman oo oo fiican oo in la xareysto ay tahay ma jirto. waxaan waa iska nasiib. computer ku select gareynayo. barnaamijka dhanaa waxaa la yiraahdaa DV Lottery Program, Electronic Diversity Visa Program. marka computer ku select gareynayo, computerka waqti cayiman oo oo muxuu ahaa haddii aad dhahdid waqtigaas waa ugu fiican ma jirto. marka tusaale ahaan aniga waqtigan xareynayay habeenkii ugu dambeysay ahayd, yacni saacado yaraa ka dhinaa markaa xareynayay. dhalinyaro badan oo habeenkii ugu horeeyay xareysaa jirtay oo iyagana uu soo baxay
dadka dhexdhexaadka xareeya iyagana oo usoo baxana waa aragnay. Marka waxaan waa iska nasiib, kuma xirno waqti hebel fiican iyo waqti hebel xun. marka waa adiga iyo nasiibkaaga iyo ina kuu qoran tahay in maaragta aad ku guuleysatid DV lottery-ga. su-aasha maaragta ku xigta, sanadkan baasaboor ma la iska rabaa? waa dhowr mar ay ugu soo noqotay. shuruudaha sanadkan waa laga saaray, baasaboor inaa haysatid muhiim ma ahan. marka lagu leeyahay baasaboor inaa haysatid muhiim ma ahan, micnaheeda ma ahan haddii uu kuu soo baxo xataa baasaboor inaan lagaa rabin. intaad xareynaysa keliya aan lagaa rabin baasaboor. sanadka hore tusaale ahaan dadka xareynaya waxaa qasab laga dhigay in ay baasaboor valid baasaboor shaqeynaya inay haystaan. reasonka looga raban waxay ahayd section waxaa ku jiray oo baasaboorka aad ku buuxinaysid waqtiguu dhacayo, waqtiguu soo baxay iyo baasaboor numberka. soo marka sanadkaneeto waa laga saaray sectionkaas. meeshii 15 maaragtay shuruudo ay ahaan jirta sanadkan waa 14 shuruudo keliya. balse haddii uu lottery-ga aad ku guuleysto uu kuu soo baxo, waa lagaa rabaa baasaboor oo safaaradda waa qasab inaad la tagtid baasaboor, weliba baasaboor 6 bilood iyo ka badan maaragtay ka dhiman tahay dhicitaankiisa. 6 bilood ka yar maaragtay fiisa ma saarayaan baasaboorka haddii uu dhacayo 6 bilood ka yar. marka waxaad ku dadaashaan baasaboorkiina inuu shaqeynayo 6 bilood iyo ka badan. baasaboor maaragtay 2 bilood camal ka dhiman tahay inuu dhaco 3 bilood 4 bilood fiisa kuuma saarayaan. marka waxaa ku dadaashaan in baasaboorkiina uu maaragtay waqti badan ka dhiman yahay expiration datekiisa insha allah. waxaa rajeynaya idinkana su-aashaas inaad fahanteen oo aad maaragtay si fiican uga bogateen. su-aashaaneeta ayadana mar walba waa liisoo weydiiyaa, shahaado high school qasab miya? shahaado high school ugu yaraan waa yani heerkaaga waxbarashada waa inay ahaataa high school level, yani dugsi sare waa inaad soo dhamaysid. waxay kusoo qoraan meesha primary maxaa la dhahaa iyo secondary. primarygaas waa isaga soo dalaan, laakiin hoos waxaa ku qoran markii waxbarashooyinka waxaa ku jiro some university courses ku jiro, bachelor degree ku jiro, master degree ku jiro, iyo waxaa kaloo ku jiro PhD ku jiro, iyo shaqo 2 sano inaa haystida ku jirto. hoos waxaa kaga qoran marka minimum ugu yaraan waa inaa haysatid high school degree. haddana kor waxaa ku qoran primary maaragtay certificate inaa haysatid texar. marka shuruudaha waxaa ka mid ah mar walbo yani oo muxuu ahaa inaa haysatid ugu yaraan shahaado high school shahaado high school haddaadan haysanin barnaamijkaneeto maaragtay mid ka mid ah shuruudihii maadan kasoo bixin waayo. haddii sidoo kale meesha waxaa ku jirta high school with no degree. haddii maaragtay no degree high school aa soo dhameeyey shahaado ma haysta haddaa dhahdid, hadhow markaad maaragtay safaaradda tagtid waxay ku weydiinayaan shahaado high school ilaan hoos waxaa ku qoran oo shuruudaha ay ahayd inaad haysatid minimum ugu yaraan shahaado high school waxaa rajeynaya in ay fahanteen dadka maaragtay maxaa sameyn karaa. waxaa sameyn kartid ma aqaani, waa inaa maaragtay shuruudaha aad kasoo baxdid. waa shuruudo ayaga ay samaysteen, waajibna ay tahay inaad kasoo baxdid. su-aasha ugu dambeysa oo dhowr mar la isoo weydiiyey, maxaa laygaga baahan yahay ama shuruudaha maxay tahay? shuruudaha insha allah waa 14 shuruudo. videogan video ku xigaan ku sharxi doonaa anoo mid mid u dul istaagaya insha allah, oo hal aan u sharxayo hadduu ilaah yiraahdo insha allah. muuqaalkan muuqaalka xigaana maaragta aan ku taagtaagsan doonaa inta maaragta aan la gaarin DV lottery-ga in la xareeyo. so insha allah waxaa rajeynayaa su-aalihiina inaan idinkaga wada jawaabay. wax alaali waxaad maaragtay kaga baahan tihiin DV lottery inaad ka ogaataan, halkan commentiga hoos igu reeba insha allah. muuqaalkana gaarsiiya asxaabtaada maaragtay rabta inay xareysato lottery-ga. waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xiga. aad baan idin salaamayaa, waan idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee maaragta ay dhiirigelisaan, commentiyada quruxda badan ay reebtaan. aad idinkaga mahad celinayaa, waan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.